رئيسل وزراء الصومالية إنجنير محمد حسين روبلي ayaa maanta qada sharaf u sameeyay dhammaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo musharaxiinta qaranka qaybo kamida iyaga oo u damaashaa tagay xeebta liida ee magaalada Muqdisho xog iswaraysiyo oo maanta uu qada sharaf u sameeyay ra'iisul Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble looguna mahadcelinayay sidii ay heshiiska u qaateen madaxda maamul goboleedyada una saxeexeen ayuu ugu waaqay ama halkaas u geeyay dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa maanta halkaas ka dhacday iyada oo qada sharaf halkaas uu sameeyay ra'iisul Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda musharaxiinta qaranka iyo madaxdii hore ee maamul goboleedyada ayuu halkaas maanta qada sharaf ugu sameeyay iyaga oo isku faraxsan ayay maanta halkaas ku wada damaashadeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta halkaas tagay iyo waliba madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed وعبد العزيز لفت قرين قدوميها قبل كبنادر عمر فينيش أي أسنا كميدها مسؤولين تاسي يدو دمان مشرحين تقريبا كميدنا أي حلقة سيمان تكون بقدين يسقوا رسالة الصومالية وما هاد عليه سيده شيء كأصححن أين أون التناسلين رسالة الصومالية إنجنير محمد حسين ربلي أي وما هاد عليين سيدي أي حلقة سيم وشركة أسنا وتناسلي قريبا كميدنا أمني كانوا سؤولا وريغي kumanaan ka tirsan shacabka Muqdisho oo xeebta magaalada Muqdisho maanta oo Jimca u damaashaa tagay ayaa halkaas kula hadlayeen madaxda halkaas ku soo booqatay iyadoo oo ra'iisul Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble oo heshiiskii shalay lagu saxeexay magaalada Muqdisho soo qaban qabiya ama mas'uuliyadiisa laha ayay uga mahadceliyeen madaxda maamul goboleedyada si loo tanaasulay ama tanaasul ay u qaateen ra'iisul Soomaaliya ayaa hadda dhammaan waxa taageersan maamul goboleedyada beesha caalamka qaramada midoobay iyo waliba midowga Afrika iyagoo shacabka Soomaaliyeedna ay bogaadeen sidii uu tanaasulay ama heshiiska nabad u qaatay markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ayaa maxaadad badan ay ku eedeeyeen inuusan waxba qaban laakiin hadda tartar cusub oo la soo baxay ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayuu hadda uu heshiiskaasi markuu qaatay dad badan oo ay bogaadeen رسالة الصومالية oo hore u sheegay inuusan musharax ahayn ayaa sheegay in ay ka go'antay in doorasho ay ka dhacdo muddo 60 cisho ayaa lagu heshiiyay in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya iyada oo maanta ay muujinayso saastaanta nabadeed ee ay ku damaashadayeen madaxda maamul goboleedyada iyada oo hore madaxda maamul goboleedyadu ay u deganayeen xerada xalane oo ay sheegeen inaysan isku aamin waayeen laakiin waxaa tuhunkaasi daaqada ka bixiyay ra'iisul Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble oo dad badan oo Soomaaliyeed ay bogaadeen halkaas oo dad Soomaaliyeed ay maanta ku damaashadeen xeebtaas oo maanta Jimcaha channelkan Abshir Joker waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto haddii aad hore nolol joogtana waad ku mahadsantahay nabadgelyo